السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليق آدم ما سنتين ولا لا قدر انتي قيام سود وهذا channel كمريم علم دور سود وهذا أصحابي محل شيقنا وعدنا الحمد لله شيقنا ليسنينا شيقا وحوكا وحوليا هاي سيدي قفك مسلم كأه وكهنوني كراه qofka muslimka sidoo uu hanuuni kara ayuu noo sheegi doonaa qof kasto muslim ah oo wanaag jecelna wuxuu jecel yahay in uu saacad kasta mar walba uu hanuuno hanuunta Ilaahay ku toosiyo uu toosnaado uu jecel Soomaha saadarteed sheekh wuxuu noogu sheekeyn doonaa qaabka lagu hanuuno iyo siyaabaha hanuunta qofka keenta wax kasta oo qaabkaas uu ka qofka hanuuntiisa ay ku iman karta sidoo wuxuu sameyn lahaay wuxuu qaban lahaay sida ugu fudud ee qofka muslimka ku hanuuni kara ayuu noo sheegayaa marka sheekha waxaa rabnaa in la dhageysto oon dhageysano sifa aan hanuunta ay noogu toosto Ilaahay xaqiisa laga helaa wax walba oo hanuun ah marka annaga bilo aadnaan Soomaa wax ma hanuuni karna in waxyaabaha nolosha sheega oo ay ku wanaagsan tahay inaan dhageysana wanaaga iyo sharta inuu Ilaahay naga qabto Ilaahay ba wax walba uu hagaajinayo marka sida uu fudud aad ku hanuuni karta uu ka shaqeynaa sheekh sida uu fudud aad ku hanuuni siyaabaha lagu hanuuni fudud ma sida siyaabaha lagu hanuuno uu ka shaqeynaa marka aan ugu daahinin barnaamijka aan ugu dheereenin warna qof muslim qof kasto muslim wax jecel inuu hanuuno marka qisooyin kale waa noo soo qaadanaya qisooyin badan oo ninka uu ku hanuuni ni hore wax u halay rabi ina kale idina halawsaneed qisooyin badan oo noogu sheekeyn doona sheekha qisooyinkaas aan dhageysana si fiican oo wanaagsan oo sharaf ay wanaag ku jiro aanu dhageysana asxaabta qaaliga hadii aad ugu cusub tahay subscribe channelka isaar hadii aad ila sii joogtin like dhac ku sii walaalaha muslimiinta qof walba walaal ah inuu ii gaaro raba channelka subscribe soo dhaha youtube-ka tanke way ii gaari laay ma garanayo sababta ilaa wax badan abaar ayuu youtube-ka qadka ku jira tankeeni waa gaari laay ya walaalaha waxaan ka codsanayaa inaad tanke ii gaarsiisiin marka sifa aan mar walba aan uga hami leenahay oo xiisayna youtube-ka aan sifa mar walba aan youtube-ka aan xiiso gaar ahaan noo lahaad waqti marka hadii dadka ay ku xiran ay yariliitaan oo like ku saareenin subscribe ku soo dhaheen way iska dhibaanta in aad youtube mar walba xiisaysid marka haduu ku soo gaaro khayrka si faafi love dhac ku sii walaalka kala share u dheh sifo asagana ugu faa'iido aan ka wada faa'iideysan khayrka ila daawo la arki doontid sida uu qurux badan uu sheekhu noo soo jeedinaya aan wada dhageysana siyaabo badan buu qofku ku hanuunaa waxyaabo qofka soo hanuuniya waxa kamid ah wacdi aad dhageysatay oo Ilaahay kugu soo hanuuniyay cid wax ku sheegtay oo hadalkii waanadii lagu sheegay qalbigaaga ay galeen waxa kamid ah quraankii iyo shariicadii iyo diintii aad dhiganaysay waxaadan aqoon u lahayn oo kitaabkii Ilaahay iyo sunnihii nabiga markaad barato in qalbigaaga hanuun galo oo Ilaahay ku hanuuniyo ku hagaajiyo عجلت أما ميموري درسي كدوبان وأدقى يستبع لك وهنونين كرا أدين لأديم يوبا إلهي كوهنونين كرا تراويح با إلهي كوهنونين كرا قفبها دي الله ورستو الله يرهدو محا سبب كوغوها هنونك قفبها وحبو شيغايا مالين بحصوصانيا مالين أيو حصوصانيا وحاجرينين كم إذا تابعين تا وحوها نين برعد oo dadka wadada u galo furta oo hawl badan oo waxyaabo badan oo dunuub iyo macaasi ah caadaystay cishadii dambe habeen baa wuxuu damcay inuu aqal u dhaadhaco qof dumara oo xumi ay degan tahay oo ay ku ballansanaayeen xumaan inay sameeyaan
markii uu wasaq barkiye gidaarkii u baxay oo aanu wali ka dhicin ayaa aqalkan u dhacayo aqal ku qabsan daaradiisa ayaa qof ku tukanaya salaatul layl markaasaa wuxuu akhrinayaa alam ya'ni lilladina aamanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah wama nazala min alhaq ayadaas qalbigiisa ku dhacday marka labadan qof warisuma hayaan uga wad ninkana waa taagan yahay salaatul layl buu tukanaya quraankii uu akhrinayay ilaahay isagoo hor taagan ayaa ka darbiga inuu ka booda doonaya aqalka kale u dhaadhaco ama tuuganimaha ugu dhaadhaco ama xumaan kale ha u socde ba qalbigiisa waxa ku dhacday aayadaas alam ya'ni lilladina aamanu miyaanay u dhawaanin kuwa ilaahay rumeeyay qalbigoodu in ilaahay diintiisa iyo shariicada ay u khushuucaan diintu inay qalbigooda qoyso oo ay dareenkooda bedesho oo dhaqankooda diintu bedesho kuwa muuminiinta ah miyaanay u dhawaan baa alla leeyahay subhanahu wa ta'ala maxaa haysta diintii waa soo dajiyay maxaa haysta dadkani may soo toobad keenaan may noqdaan oo macaasida joojiyaan baa ilaahay leeyahay markaasuu gidaarkii ka soo noqday bala ha qalbigaygu waa u dhawaaday bartii buu ku toobad keenay markuu ka soo dhaadhacay buu meel fadhiistay isagoo fikraya ayaa niman socotaa meeshii soo mareen markaasay waxay yiraahdeen war ina joojiyo aynu iskalka seexanno ninkii baa wadada ku jiro wayna dhacayaaye hadda waa isaga ninka la sheegay waa ina dhacayaaye war ma socon kareenaye nan guurayne ninkaasi ummad waa mariyay war aynu iska seexanno ninkii wuxuu noqday markii dambe kitaab kasto oo tafsiira kitaab kasto oo xadiisa oo sharxiisa marka aad kala furto magaciisa aad ku arkaysa qala al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah wa ninka al-Fudayl ibn Iyad leeyahay wuxuu noqday nin caabid ah oo caalim ah ayuu noqday aayadaas qalbigiisa bedeshay xumaantii uu ku jiro dhan aayadaas bedeshay innaga quraankeenu dhiganayno sunnaha nabigeenu baranayno alayhi salatu wasalaam wacdiga khayrka limaada maxaynu ku duxilaayeen maxaa waxay saakay bedeli laay maxaynu macaasida iyo xumaanta u wadwadnaa gooraynu dhimanayno miyaynu garanayna goora dhimanaysa ma ogid aqalkaaga dugsiga iyo malcaamada wadada gaari korkii meelaad ku dhimanaysa adigu ma ogid waa garanaysaa عشدويد مقالة أردن وحي مرقرة درين كذي تابتي إنن هل مر إلهي وجمعيي فرحة دي يجير دي وحالة الماما يا وقت آخر الزمن كرسولك وحو شيغي علامات الساعة قيام الساعة وحاكمت الموت الفجأة جيريد الله ما فلان كابو النبي عليه الصلاة والسلام سيدا أقول حين أباهن هاي قف إمين كام سوق علي معتك يمركزك qof hore u dhigan jiray mid meel wax ku soo bartay mid iminka wax baranaya waa inay diintu waxina ka bedeshaa waa in qalbigeenu diinta gashaa